صالحية soo dhow baan ku leeyahay walaalo wixii aad oranaysid walaalaha iyo hooyooyinkaba السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله يا الحرجيني أنا سوى نكسن عديم مغليسان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله وحليه هاي ولا شيء سهرة ورنتي مقرنا يساعي ترينين ونود حلقة يا هذا لم يسامن وقروح بدن إنه عاوي إنه حريق ضي وحرجيني ولا ليالين أدميلكو ذا حريقتين إسلام كان حماسة iyo training-ka aad qaadateen oo ka muuqan doono saacada laga bilaabo shaqadiina walaasheen waa manager marka waxay nagu hadlaysaa maskaxdii manager-kay nagu hadlaysaa waxa weeyaan runtii business-kani waa business cid walba ma garanaysaa u furan ama rag ahaw ama dumar ahaw laakiin marka dumar aynu nahay this is the best opportunity ay haystaan waa fursadda ugu wanaagsan ee no haysano walaalayaal weeyaan sababta waxa weeyi gurigaaga adigoo jooga ay ciyaalkaaga haysta oo noloshaadii ma garanaysaa oo dhan maareynaya oo wax ka baylahayaanu jirin ayaa soo saaraysa dhaqaale ka badan intuu doonaba xaajigi intuu doonaba ka badan ma garanaysaa nin kasto suuqa ku jira ayaa soo saaraysa yaani wax ka xumaanaya haba yaraataan u jirin runtii fursadani waa fursad aad iyo aad u qaali ah oo si gaar ah hablaheena iyo haweenkeena waa anfacaysa aynu ka faa'iideysano hadal maxaa haray looma hadlo maxaa haray baa la yiraahdaa laakiin ana haray looma hadlo walaalayaal murti iyo hadalba walaasheen bay noo dhamaystay waanad gunudeysaan filayo waxaan rabaa una niisir xoojiye in yar waxyaabii ugu muhiimsanaaye ma garanaysaa inagala hadlaysay walow aanan ma garanaysaa inta badan aan ka yar mamaqnaayo hore u soo gelgeli karayn oo waqtigiisa saamaxayn haddana waxyaabaha ugu muhiimsanaa focusku saarnaa waxa weeyi inay nii tilmaanto hababka ugu fudan ee darajadaad u bedelaysaan taas waxa ugu muhiimsanayd idinkoo isticmaalaya istaraatiijiyadda loo yaqaano 4cc istaraatiijiyadda 4cc la yidhaahdo runtii waa istaraatiijiyad muhiim ah oo qofku hadduu isticmaalo uu siday tahay u isticmaalo culays ba isagoon dareemayn uu darajo kasta gaadhayo bilaa stress bilaa dhibaato bilaa buuq aad gaadhaysa halkaad doonaysay marka maxay tahay 4cc horta cc-ga waxaan isla garanaynaa inuu yahay lacag ay shirkaddu isticmaashay inuu yahay baan isla garanaynaa walaalayaal marka 4cc maxay u taagan yihiin sidee qofku ku samayn karaa 4cc waxa weeyaan waa waxa ugu yar ee bishii inaad samayso lagaa doonayo ee shirkaddu ku tiri si aan kuu garanno inaad ahayd qof shaqaynaya bishaasi waa wixii ugu yaraa qof kasta mas-uuliyad la saaray weeye marka 4cc waa wax lagugu tijaabinayo inaad tahay qof hami sare leh oo yacni ma garanaysaa businesskan meel sare ka gaadhi kara oo samayn kara wax iyo in kale waa minimum requirement dadka badankiisa waxay sameeyaan 4cc wax ka badan wayna samayn karaan laakiin waa minimum weeyaan waa minimum requirement marka 4cc ee active-ka ah waxa loo xisaabiyaa hal cc inuu qofku uu isagu iibsado oo alaab uu iibsado waa inaad wax iibsato oo tafaariiq ahaan aad tahay qof active ah oo bishaasi ma garanaysaa shaqaynay oo alaabtii macaamiishiisii daryeelay inaad tahay baa laga doonaya ma kaliya inaad team u dhisto laakiin qaybtii baayac mushtarkiina waa inaad tahay ma garanaysaa qof ku xoogan runtii 4cc ka badanba waxaad ka soo saari kartaa macaamiisha aad haysato sababtoo ah macaamiishu waxa weeyaan waa customerskaaga alaabta ka iibsanaya weeyi shirkadeen waxyaabaha ay qofka kula taliso waxa kamid ah ugu yaraan inuu samaysto 20 qof oo macaamiila haddii aad xaafadaha jaarka iyo asxaabta haddii aad dawladilka aad u macmiisho oo bishii laga qaato imse qof oo macaamiil joogta ayaa dawladilka oo kaliya ka macmiilan kara haddii ma garanaysaa saabuunta aad u macmiisho imse qof ka macmiilan kara haddii cadaraanteena aad u macmiisho imse qof ayaa ka macmiilan kara haddii qaybaha timaha ee shaambooyada iyo waxaas oo dhan aad u macmiisho imse qof ayaa macmiil rasmi ah aad u samayn kartaa hooyooyinka ciyaalka haysta forever kids imse qof ayaad u samayn kartaa macaamiila waxa weeyaan waxaynu haysanaa lot of products baynu haysanaa walaalayaal dhinac kastood ka eegta bakhaarkeena wuu buuxaa oo wuxuu ka buuxaa alaabo tayo leh wanaagsan buu ka buuxaa kaliya inaan macaamiil wanaagsan samaysano oo indhaha furno oo ummadda aan tusno waayo dadku kuma soo raadsanayaan laakiin adaa la doonaya inaad raadsato oo adigoo aad ma garanaysaa indhaha isku soo jeediso oo si tixgelin leh macaamiil u abuurata la doonaya marka macaamiishaada liis garayso macaamiil rasmi ah oo alaabta kaa gata oo kugu xidhan yeelo sida caadigaana dadka guulaystay waxay ku taliyaan baan nidhi maxay 20 qof in macaamiil la sameeyo
marka haddaad 20kaasi macaamiil aad haysato 4 cc maxay noqonayaan waxba ma noqonayaan 4 cc hal cc baa laga doonay macaamiisha inaad ka iibiso laakiin 4 cc ka badan ayaad iibin kartaa waxaan xasuustaa gabar teamkeena kamid ah Aisha la yiraahdaa inay nagula jirto trainingka ma hubo laakiin waxa weeyaan ilaa 25 cc ku dhawaad ayay muddo 2 bilood gudaheeda ay macaamiil ku iibisay 25 cc yani waa 12 cc weeyaan ma garanaysaa waxay ku iibisay kaliya supervisor kaliya ku noqotay macaamiisheeda ku noqotay maha team ay samaysay kuma noqon supervisor waxay ku noqotay maxay macaamiishay haysatay marka macaamiishaan haysano waxa lagu yiri ugu yara hal cc ba lagu yiri hal cc marka lagu leeyahay de shirkadu way ku yaraysatay inaad adu 10 cc aad iibisa laga doonaya laakiin hal cc inaad kari weydo dhibaatay noqonaysa tiraan halka cc na ma karayo hadii aad halka cc aad sameyn kari weydo waa mushkilad weyn weeyaan walaalayaal waliba hadda waxa muhiim ah qofku inuu 10 cisho u horeeya uu iska sameeyo bisha ayaa muhiim ah waayo saacadaha u dambeeya hadii aad gaadho waa risk weey marka hal cc waxa laga doonayaa activity-gaaga inuu ka yimaado adiga inuu ka yimaado la doonaya maxaa soo haray hal marka laga gooyo 4 3 cc baa soo haray saddexdan cc na ama alaab iibi ama ma garanaysaa team samee inaad team haddaad samaysto bisha gudaheega salahan August baan ku jirnaa August teamkaad samaysay wadanka degan tahay aad ka samaysay ayaa lagu xisaabinaya marka imise qof aad duwan gelin kartaa bishani haddaad 5 qof duwan geliso waa imise active 10 cc active weey laakiin minimum baa lagu toban laguma weydiinay lababa wax laga rabaa inaad ma garanaysaa 3 cc oo team aad samayso iyo hal cc oo personalkaagiya intaas buu weeyaan walaalayaal marka 4 cc maxaa inaga xidhan haddaad sameyn waayo maxaa qofka helaya walaalayaal qofku managerkan salahan waxa doonaysaa bishan September ama 9 soo socota inaad manager noqoto managerka maxaa lagu noqdaa waxa lagu noqdaa 2 bilood oo isku xigay CC-yadeedii oo la isku daray ayaa lagu noqdaa soo sax ma aha marka 2 bilood bishan waxaanu joognaa August ama 8aad baynu joognaa dhammaan shaqada aad qabataan adiga iyo teamkaagu oo lagu daray bisha soo socotay September shaqada aad qabataan adiga iyo teamkaagu marka hadii ay isla gaadho 120 cc 2 bilood manager baa tahay ma sha Allah tabarakallah manager ayaa tahay laakiin shuruuda computerka marka dhaafto manager cc-ga aad buuxiso laga doonayay computerku wuxuu ku weydiinayaa sidoo kale active ma ahayd August active ma ahayd September hadii aanad ahayn no buu koranaya unrecognized manager ayaa tahay buu koranaya yani manager aan la aqoonsanayn baa tahay buu koranaya marka that's the important balka war adiga 120 cc keena oo 4 cc ku waaya ka waran waa risk weey arrin kalena walaalayaal ni xasuusin doona insha Allah ta'ala oo very risky oo qofku inuu cc-da complete uu ka dhigta ay tahay oo maanta nagu dhacday xaqiiqatan isla maanta nagu dhacday oo maanta uu anigu laftigayga waan ogaaday oo very important waayo wax very rare dhaca weeyaan laakiin qofku inuu ka taxadiro ay tahay maxaa ku xiran soo kala 4 cc walaalayaal waxa ku xiran hadaf baan leedahay ma sha Allah walaashin qaaliga ah manager Sahra waxay nagala hadashay waxyaabo waaweyn bay nagala hadashay hadaf cad bay noo sawirtay hadafka cad inaad gaadho 4 cc ba dariiqi loo sii mariyay leedahay ayaa ah waayo gaarigaagii marka darajooyinka bisha aad iibka samaysay ay shirkadu qiimeynayso haddii aanad 4 cc aanad bilaha aad ku guuleysatay gaariga aanad samayn dee gaarigii waa ka xirmaya salahan shuruudii gaariga dhawaad buuxisay laakiin 4 cc ayaanad samayn riski weeyaan walaalayaal halis weeyaan taasina qodobka kale waxa weeyaan dalxiiskii balka war adigoo dalxiiskii weynaa shirkada ku guuleystay oo 4 cc oo ma garanaysaa alaab macaamilka iibsato ku buuxsami lahayd oo kaaga xidhma ka warrama oo lagu dhaado waxa weeyaan adigu active ma ahayne cc-yadan teamkaagii baa shaqeeya lagu oranaya waayo adigu 4taadii wad ka adkaan weyday marka minhid cc-yadani dadkii ka hooseeyay ayaa sameeyay ayay shirkadu ku leedahay markaasi waa goorma waa markaan 4 cc sameyn marka waa very important taasina walaalayaal waxaad aragteen walaalo waaweyn walaalo ma garanaysaa runtii lacag waaweyn oo ilaa jeegag waaweyn ku guuleystay baad aragteen oo malaayiin dollar ku guuleystay baad aragteen walaalo Soomaaliyeed baa kamid ah walaashan Aisha ku jirta waana modelka aynu haysana maanta haween ahaan aad waliba si gaar ah u daawanaysaan ma shaqadan rag ay kaliyoon ay caano badan ka keeni karaan waa shaqo ma garanaysaanu ka dhaxalnay haddii maanta Cusmaan aad arkaysaan oo runtii tirsanaya alxamdulillah meel fiican uu ganacsigan ka marayo haddii aad arkaysaan dad kale leader Ahmed oo aad arkaysaan meel wanaagsan maraya iyo leader kale haddii aad arkaysaan oo raga waxayna aan ka dhaxalnay gabar Soomaaliyeed baanu ka dhaxalnay oo nagu mahad celinayna
gabadha Soomaaliyeedna idinkay naga soo dhex baxday kuwa badan oo iyada la midiina walaalayaal way ku jiraan walaashin waxaad ogtahay in darajooyin waaweyn Aisha ay ka gaadhay oo ma garanaysaa wax weeyaan ma sha Allah life-kaygu isbedelay sanadkan oo kaliya lacagtay ku guuleysatay lacag waxay 420,000 oo dollar bay ku guuleysatay ma sha Allah Aisha Mustafa wala maani weey laakiin sababta ganacsiga waxa lahayd Aisha lahayd business ka dhan bilaabitaankayga Aisha lahayd Mustafa Gordon buu ku biiray oo uu shaqadii la galay marka walaalayaal lacagta cheegaasi shirkadu waxay ku eegaysaa sanadkii mar baa la bixiyaa sanadka dhan active ma ahayd bay ku leedahay haddii aanad ahayn waa riski weeyaan de wax laga yaabo lacag inta laginaad weydo waa halis weeyaan cheegaaga dhan ay caalamka ay heli lahayd ayaa halka ku balogaraysmaya marka walaalayaal waa very important haddii ma garanaysa haddaba sidee loo samayn karaa qofku 40 cc qaabkuu samayn karaa wuxuu samayn karaa inaad alaabta dadka la wadaagto ood macaamiil samaysato oo jaarka la wadaagto alaab badan bay kaa gadanayaan it is easy macaamiil badan ka haysa alaab badan bay kaa gadanayaan alaabta ay gateen macaamiishaadu iyo alaabta ay gateen maxay teamkaagu oo la isku daray ayaad ku gaadhaysaa maxaad ku gaadhaysaa 40 cc waad ku buuxinaysaa inaan fahanay baan malaynayaa walaalayaal muhiimadda ay 40 cc leedahay iyo sida loo sameynayaba very important weeyaan haddaba 40 cc ma istaraatiijiyad nooceeya ayay leedahay soo kale haddii aad leader weyn tahay walaalayaal oo commission bishan lahayd laakiin aan 40 cc sameyn uu kaa xidhmaya group bonuskaaga lacagtii teamkaaga ma helaysid commissionkii teamkaaga marka waa inaad sii tababarataan maalintaas supervisor noqoto qasab bay kugu noqonaysaa oo laga doonaya waayo group bonuskaagii ama lacagtii group bonuska ku bilaabatay teamkaaga downline-kaad ka helaysay waxay ku xidhan tahay inaad ma garanaysaa samayso 40 cc waana very important walaalayaal faa'iidooyin fara badan oo runteena soo koobi karin bay leedahay faa'iidada kale leedahay waxa kamid ah adigu haddii aad barato teamkaagana aad barto runtii manager wuxuu noqonayaa soo taabo kaayo ilaa buu noqonayaa waa taabanaysaa kaama dheera manager it is very easy walaalayaal aad buu fudud yahay laakiin goorma fududaanaya wuxuu fududaanaya markaad dariiqeega haysato eed haadkeega haysato balka war haddaad gaari haysato halkaa soo jiirayso iyo haddaad gaarigaaga dariiqii saxdii aad mariso ma isku mid baad noqonaysaa meeshii ma isku mar ma wada tegaysid laba waqtiyo kala duwan ayaad meeshaad u dan lahayd aad aadaysaa marka walaalayaal 40 cc managerkii aad u dan lahayd ee aad doonaysa inaad gaadho ayaa si yaro fudud aad ku gaadhaysaa haddii aad ma garanaysaa 40 cc samayso oo maxay tahay waxay tahay tusaale ahaan waxaad haysataa 3 qof oo team aad haysataa 3 qof oo min 2 cc 4 cc sameeyay imisay noqonaysaa waa 9 adiguna 4taad u gee 12 muddo 2 bilood isku gee markaa waa imisa 24 supervisor way 3 qof aad ku noqotay oo 2 qof oo kaliya oo haysato ma 3 qof oo teamkaaga oo haysato ayaad ku noqotay supervisor just 9 qof oo teamkaaga oo haysataana waxay ku dhaxalsiin karaan assistant manager maanta badankiin imisaad haysataan imisa teama imisaad haysataan badankiin qaarkiin 3 bay haystaan welina supervisor ma yidin sababtu ma maxay waxa weeyaan teamkiiban 40 cc sameyn waa inay sameeyaan 40 cc adiguna samee oo teamka sameeha oo dhan ilaa ay adigu aad sameeyso waayo adigiiba haddana sameeynin oo adigiiba aan sidaan u sameeyo oo dhanin dima teamku ma sameeyaan in adaa muraayade ku daawanayaan teamkaagi marka insha Allah walaalayaal waa very important managerka 15 qof oo kaliya dad badan baa jiro assistant supervisor oo 15 qof ku hoos qorayn waa nasiib darro taas ma aha ganacsi waa nasiib darro walaalayaal sababtoo waxa weeyi 15 qof oo kugu hoos qoran oo min 4 cc sameeya oo si fiican aad u tababarto oo leader wanaagsan aad u noqoto runtii manager iyo wax ka sareeya gaalaysaa markaaba 15 qof min 4 waa imisa ma sha Allah waa 60 2 bilood gudaheed 120 manager ma nadahayn manager kuma melder ba maya melder ma haddaba 40 cc walaalayaal 40 cc waa very important aad bay muhiim u tahay walaalayaal halkan waxaad arkaysaan salahan personal cc waxa weeyi cc-ga adigu aad iibsatay weeyaan personalkaaga ID-gaaga ku iibsatay waa kayga kani maxay qoran hal cc bad ayaan bisha iibiyay hal cc bad markaan iibiyo FPO-guna waxa weeyi cc-yada ay teamkaygu iibiyeen weeyaan bishaan aan qoray marka bisha hadda u dambeysay bal adiguna systemkaaga fiiri active total marka labada la isku geeyo hal iyo bad marka loo geeyo 2.8 maxay isla noqonaysaa
waxay isla noqonaysaa totalku maxay 4.3 bay noqonaysaa walaalayaal marka halkaa maxaynu ka garanaynaa total cc-gaasaad eeganaysaa sidoo kale haddii totalkaasi eeg sidoo kale personal cc-gaagna eeg personalku waa inuu noqdo ma garanaysaa ugu yaraan hal cc waa inuu noqdo markaad ugu yar tahay kani waa aniga waa bishii 6aad maxaa personalkay ku qoran hal cc baa ii qoran distributorkana ama FPOCC-gana waxa ii qoran 3 baa ii qoran marka la isku geeyana waa intaasay noqonayaan walaalayaal waxa muhiim ah inaad sidoo kale teamkiina aad u eegtaan ayaa very important here sidoo kale teamkaaga waxa laga yaabaa qofku inuu 2 cc markuu maanta iibsado qofkii aad duwaan gelisay 2 cc oo xoogaa inuu iibsado ayaa laga yaabaa qisaan iniga sheekeynaya maanta nagu dhacday walaalayaal walaasheen Saadiya oo runtii connection ku ka xumaa on ma garanaysaa inay u suuro gelin inay fiiriso active-kii ayaan eegaya Saadiya waxay doonaysaa inay manager noqoto ayay doonaysaa insha Allah bisha September oo CC-yadii bilihii oo dhan way soo xisaabsatay laakiin nasiib darro bishan haddaan ku jirno CC-gii hal koolgeedo kaliya ayaa active-kii ka dhiman oo sidee ku dhacday walaalayaal waxay ku dhacday personalkayga wadi ka arkay walaasheen 2.3 weeyaan waayahay FPO-gina waa imisa waa 1.6 weeyaan marka 1.6 sideedaasi marka la isku geeyo waxay noqonaysaa 3.990 laakiin nasiib darro FPO-ga ay duwaan gelisay qof ay duwaan gelisay buu ahaa qofkaasi wuxuu iibsaday 2.4 iyo 47 cc ayuu iibsaday marka iyadu waxay ku xisaabsantay 2 cc wixii dheeri ahaa bay tirsatay marka saasi isku buuxinayaan bay tiri laakiin nasiib darro may buuxsamin marka waxa tirsanaysaa dadka tirsanayso active-kooga inta uga dhiman salahan qofka duwaan gelisay markuu 2 cc buuxiyo wixii dheer 2 cc adiga xoolaha shaqo kuma active ma noqonaysid maxay noqonayaan nan manager cc bay soo galayaan halka kale soo galayaan 3 bay soo galayaan ina halka faantiin ma rajeynaya walaalayaal marka cc-gaad iibsatay iyo 2 cc qofkan baa tirsanaysa hadii labada wax dheeraadaan wixii dheer ma tirsanaysid oo active kuma noqonayaan waa very important marka 3.990 imisa ka dhiman 0.010 baa ka dhiman ever debito waa yani dawadeeda ka laga yaabaa inay tahay waliba ka yar tahay intaasaad ku waayi kartaa ma garanaysaa manager dan waa dhibaato maanta waan group-yada niga soo sheegnay walaalayaal arrintan waa arrin very serious marka leader kastana uu teamkiisa waa inuu eego muhiimadda afarta siisu muhiimado badan bay leedahay manager ma noqon karto hadda Saadiya ilaa yaalka la saxayo goor dambe la sixi karana lama ogaan marka hadda waxa weeyaan ilaahay sidoo wax ka dhiga ayay noqonaysaa laakiin waxa weeyaan idinka ay ni tahay tusaale cad aniga ay tusaale ay tahay 10 tahay waxayna dareensiinaysaa muhiimadda afarta siisu leedahay waxayna dareensiinaysaa had iyo jeerna CC-geena aynu fiirsano oo aynu eegno maxay ayna systemkeena mar walba la socono oo aynu mas'uuliyad qaadano responsibility aynu qaadano ma hebel baa eegaya hebel baan anigu wax ka sugaya lama baano hebel baa leader lama baana hebel waxa la doonayaa inaad tirada i bar halka afarta CC-halka laga eego waa inuu ku baro weeyaan walaalayaal marka insha Allah ta'ala guul baan ni rajeynayaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa walaasheena sharafta leh leaderkeena qaaliga ah runtii ma garanaysaa training-ka dhamaystiran siisay ilaahay ka jisaysiyo aad bay u maasan tahay idinkuna aad baad u wada maasantii walaalayaal intaas rabaa